صاحب واللحدة كي تشتي اللحدة يا إن مركي لو ويدي حتى لو سؤالنا وحيابا قارك هذا شرط نصيب درن قارك هذا kulanti wacan daawadayaasha sharafta leh ee ku xiran janalkan Shabalaala TV ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa fanaanada caanka ah ee Hodan Abdirahman oo ka hadashay furiinka iyada iyo Mursal Muuse Hodan Abdirahman oo weerar lagu soo qaaday waa kuma qofka soo weeraray Hodan maxaa ka jira furiinka iyada iyo Mursal Muuse warbixin dhameystiran ayaan idin hayaa daawadayaal balse inta aanan ku bilaabin warbixintan xasaasiga ah hadii ay tahay booqashadaadii koowaad ee aad ku timaado janalkan waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad janalka subscribe aad saarato furtana gambalelka say ku soo gaaraan barnaamijyada xiisaha leh ee aan halkan ku soo baahiyo sidoo kale daawade waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan aad like saarto 24 saac ee la soo dhaafay waxa baraha bulshada ay Soomaalidu ku kala war qaadato aad u qabsatay sheekada iyo furiinka fanaanada caanka ah ee Hodan Abdirahman dheere iyo fanaanka codka halaasiga ah leh waa Mursal Muuse oo horaanba safaaradaha ay u kala rarteen qadra Saliimo ayaa markan haddana ay soo baxeen warar sheegaya in uu furay Hodan Abdirahman yeelkeede wararka furiinka Hodan iyo Mursal ayaa ahaa saacadihii ugu dambeeyay hadal heenta baraha bulshada kuwooda ugu waaweyn haddaba sheekada furiinka labadan lamaane ayaa timid kadib markii qoraal la soo dhigay ciwaanka Snapchat-ka Hodan Abdirahman qoraalkaas la soo dhigay ciwaanka Hodan Abdirahman ayaa u qornaa sida tan waxaan adduunka oo dhan saacadan u cadeynayaa aniga oo ah Hodan Abdirahman Snapchat-na aad igu wada taqaanaan inaan kala tagnay Mursal Muuse oo ahaa ninkeyga nolol kasta dhamaad iyo bilow ayay leedahay ood is endi qoraalkaas ayay soo gelisay Hodan Abdirahman barteeda Snapchat-ka haddaba markii qoraalkaas la soo dhigay ciwaanka Hodan Abdirahman durbadiiba waxa warkii meel walba geeyay dadkii Soomaaliyeed dadyow badan oo aad lamaanahan u taageera ayaa arintan ay ku noqotay lama filaan saacado yar kadib Hodan ayaa soo hadashay iyadoo sheegtay in ciwaankeedii laga jabsaday sidoo kalena aysan soo qorin qoraalkaas haddana ay dib u soo ceshatay ciwaankeedii qoraal ay ku soo qortay ciwaankeeda ay dib u soo ceshatay ayaa u qornaa sida tan subxaanallah Snapkeyga waan soo ceshaday xataa qof umula ka xishoomayaan Soomaali haddaan ka bixi karo waan idinka bixi lahaa bal maxaad ka helaysaan Snapkeyga aad jabsateen ee waxa aad doontaan ku soo qorteen qoraalkaas ayay Hodan Abdirahman ku soo qortay barteeda hora loo yiri jaceyl xaasid ma waayo hadii aad hore u maqashay furiinka Hodan iyo Mursal waxaan ku xaqiijinayaa inuu been abuur yahay weerarna lagu soo qaaday fanaanada laakiin nasiib wanaag dadaal dheer kadib waa loo soo celshay ciwaankeedii xubsiimaha halba la siistay Soomaaliya tarteen xubsataa wax walba ka horeeya haddaba daawadaha sharafta lahow hadii aad taageero u tahay Hodan iyo Mursal waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan aad like saarto intaan muuqaalkan muuqaal lamid ah aan ku kulmi doono waxaan idinka tagayaa heestii nacabkay ha ii jibin iyo codkii fanaanadii weyneed ee Seenab Cige nabadgelyo sida tahay jirkaygiiyo jahwadna ku yala sida tahay jirkaygiiyo jahwadna ku yala layka jaxaadsi nacabkay ha ii jibin sida tahay jirkaygiiyo jahwadna ku yala sida tahay jirkaygiiyo jahwadna ku yala layka jaxaadsi nacabkay ha ii jabin